Asxaabta habeen wanaagsan meel kastoo joogtaan haatan waxaa soo dhammaaday shir jaraa'id oo uu si toos u qabanayay Mr. Wajabukati gudoomiyaha ABC ee dhinaca doorashooyinka dalkani Kenya waxaana uu ka warramay arrimo kala duwan oo la xiriira qaladaad dhacay warqado markaasi la akhrin waayey ay markaasi dadku u codeeyeen sidoo kale waxa uu ka hadlay natiijada doorashada oo uu sheegay inaan loo kala tegi doonin caawa oo ay hawshaasi meel adag marayso haddii aynu u guda galno wararka xiisaha leh waxaa ka mid ah muddo saacad gudaheeda ayaa labada musharax ee u kala sharaxaan xisbiga UDA iyo xisbiga Azimio waa Raila Odinga iyo William Ruto waxa ay isku bedeleen markaasi kala sarreynta cidda ugu yaraan ku dhow iyadoo tirada ay socoto maahan inay isla markan ku guuleysanayaan tirada ayaa socota macnaha waxa ay ku kala hormareen muddo saacada ayay isku bedeleen saacad ka hor sida shaxdan ka muuqata waxaa markaasi hoggaanka hayay musharaxa Azimio Raila Odinga oo ku hogaaminayay tirada boqoleyda ah 49.68 oo markaasi waxa uu ka horreeyay musharaxa ku soo xiga William Ruto oo isagu markaasi watay sida ku muuqataba dhibco dhan boqoleyda 48.72 marka waxaad moodeen wax yar ku kala sarreeyeen iyadoo taageerayaasha dhinaca Azimio ay niyadda gashadeen in ay ku guuleystaan hase haatee sidaan idiin sheegayba wax walba waa ay isbedeleen hadda oo saqbarkii ah saacadda dalkani Kenya waxaa hoggaanka haya William Ruto oo xisbiga UDA ka sharaxan isagoo kula wareegay hoggaanka sida hortaada ka muuqataba boqoleyda 49.42 Raila Odinga 49.14 marka waa 42 iyo 14 tiradu ma sugna oo tiradu waa macnaha tirinta codadka waa socotaa balse sida muuqata waxaa hoggaanku u noqday mid la isku dhiibo Wajakoya ayaa isagana soo laba kacleeyay oo kaalinta saddexaadba aan ka digin isagoo markaasi cod bixin 0.5 ka hooseysa markaasi uu haysto haddaba wararka xiisaha leh kale waxaa ka mid ah saqbarkan soo baxay in taageerayaashu ay ku wareersan yihiin sida ay wax u socdaan iyadoo ay adkaatay dad badan ayaana sida caawa xilli hore aan idiin sheegnay waxay saadaalinayeen in ay noqon doonto in la iskula noqdo wareeg kala bax ah oo doorashada lagu kala baxo marka la fiiriyana hadda tirada qaabka ay macnaha isugu dhowdahay waxay muujinaysaa in ay markaasi dib ka adkaan doonto oo kala baxa degdega uusan jiri doonin shaxdan ayaana ah mid ay falanqeeyaashu ku tilmaameen inay tahay tii ugu adkayd markaasi dalka ka dhacda iyadoo horey ay u jirtay in xilli hore uu fiidkii la sii ogaado markaas musharaxa waa doorashooyinkii hore 2013 oo waliba qallaasa ay markaasi qaybtood laga baqayay in musharaxa markaas tartamayay uu ku guuleystay Uhuru Kenyatta ayaa 13 iyo 17 labadaba ka tartamay dalkani Kenya oo maanta xilkii asagu si toos ah u wareejinaya musharaxa labadan musharax ee caawa sidan isugu lingaxan ee isku dhagan markaasi ka soo baxa ku guuleysta kursiga madaxweynaha dalkani Kenya wararka kale waxaa ka mid ah waxaa jirta in deegaan ka tirsan ama hoostaga Wajir bari la aadi doono doorashadiisa sida caawa tabinteena hore baan ku sheegnay Dalsoor Media Dalsoor Cable aan iraahday waxaana la sheegay in arrimo amni dartood ay u baaqdeen deegaano kale oo Northeastern ku yaala waxaa jiray kooxo argagixisa oo dadku uga hanjabay inaysan codeyn karin sida caawa tabinteena hore baan ku sheegnay oo aan ka soo xignay war markaasi wariye ka tirsan BBC-da oo halkaas ka soo tabiyay doorashada ayaa la filayaa in caawa saqbarka ama waabarka markii ay ku dhowdahay ay kala cadaato qofka sida tooska ah xarig isku dhiibkan caawa dadka qabsaday ay toos ula wareego waa Ruto oo ka socda dhinaca UDA iyo ninka kale
ruucadaaga ay muddooyin kala duwan soo tartamay waa Raila Amolo Odinga oo isagu Azimio la Umoja ka socda labadan musharax ayaana kaambinadoodu waxa ay ahaayeen kuwo waqti dheer soo socday oo markaasi dadka Kenyaanku ay aad uga dharagsan yihiin mid walba iyo ballanqaadidiisa wixii ka soo kordha dib ayaan idin kala socodsiin doonaa haatan oo saacadu ay tahay 12 iyo barkii habeenimo wixii ka dambeeya waxaan filayaa in waaga markuu bariyo aad warbixino dheeraada heli doontaan iyo sida ay noqoto fadlan asxaabta waxaan ka codsanaynaa channelka soo booqata oo wararka hagar la'aanta hela channelka waa channelkoodii inay subscribe saaraan like noo siiyaan si asxaab badan uu u gaaro oo wararkan ku wareersan meesha ay ka heli lahaayeen wararka ugu dambeeyay doorashooyinka dalka Kenya maanta dhacay annagana sharaf inoo tahay waana kaaga mahadcelinaynaa haddii aad horay u samaysay inaad page-ka subscribe saarto dad badan oo nagu soo biireen waan u mahadcelinaynaa warar xiiso badanna way ka heli doonaan halkan oo ku saabsan guud ahaan caalamka iyo xaaladdan hadda ka jirta dalka Kenya ee doorashooyinka ah waad mahadsantihiin amaana